afkaygu amaanta ufududaay afkayguna amaanta gacalo ufududaay السلام عليكم أصحابتي إذا شرفت له ملو باجوكتان وحين الله يا وبدامية بين مشاغة برقة بنان كدقي جنال كداوني سين ومرخاتي تي في أصحابتي إذا عصب سبسكرايب يو شير يو كومنتي يو لايك يو قبطة وهدي فيديو قناة كهشان أما هاد كهشان مرخاتي تي في وحيابها عصب أو صوبا نجيو ما أنت مرخاتي تي في ما دامو يا مرخاتي النور waxaan rabaa inaan idiin sheego ama idiin soo bandhigo nolosha qof caan oo adinka taqaanin oo gabar wanaagsan ah oo Fartuun Balbalaar aad baad uga dharagsantihiin nolosheeda cusub ee haddeertaan iyo mideeda hadda waxaadna ogeyn nolosheedii dambe Fartuun Balbalaar waa tuma halkee ka imaatay nolosheeda hore sidee ahayd intaas ayaa rabaa inaan kaga jawaabo iyo sidoo kale nolol cusub oo hadda ay bilowday oo adinku adnaan fahamsanayn oo qaarkiin arkin laakiin ay soo bandhigtay nolosheeda cusub marka nolosheeda cusub hadda waa ay soo bandhigtay laakiin nolosheeda kale adnaan la socon ayaan rabaa inaan ka dabageeyo Fartuun Balbalaarka gabar had iyo jeer aad u wanaagsan oo xataa waxay ahayd hablaha Soomaaliyeed oo farakutiriska ee dhanka waalidkooda caawiya oo mar walba jeclaa culayska familkooda ay ku jiraan inay ka saarto Fartuun Balbalaarka nolosheedii qayb kamid waxay ku soo qaadatay dalka Saudi Arabia gaar ahaan magaalada Jeddah halkaas ayay mataqaanaa ay ka xamaalo jirtay oo hablaha Soomaaliyeed halkaas ka shaqeeyay qayb ka ahayd si ay mataqaanaa culays familkeeda haysto dhanka dhaqaalaha ay halkaas kaga caawiso Fartuun Balbalaarka waa ay guursatay oo waa hooyo Soomaaliyeed oo waxay leedahay 3 caruur ah waxaa qabi jiray nin lagu magacaabo Afweyne intaas oo kaliya magaciisa ka haya tafaasiilkiisa kala ma sii hayo Afweyne waxaa la sheegay in uu ahaa ragga Soomaaliyeed ee aad u dhiba dumarka Soomaaliyeed dhibaato xoog badan ay kala kulantay Fartuun Balbalaarka oo kamid yahay inuusan ahayn nin naxariis badan inuusan ahayn nin mataqaanaa ilmihiis xataa jecloosan ahayn Fartuun Balbalaarku marka maadaama ay qof xoogsataa oo mataqaanaa ii sheegeen karti badan leh waxay isku dayday inay nolosheeda halka ay kasii wadato marka ay culays fara badan ay u adkeysan weysay Fartuun Balbalaarka iyo saygeedii hore halka ay ku kala tageen oo Afweyne halkaas ku kala tageen marka Fartuun Balbalaarka kadib dabayaaqadii waxay inta u soo laabatay magaalada Muqdisho halkaas oo ay mataqaanaa ganacsiyo yar ay ka bilowday waxay ahayd maamo Soomaaliyeed oo ilmaheeda korsanaysa ahayd oo waxay lahayd miis yar oo lagu iibiyo qudaarta yar sida qudaarta caadiga ah oo adeega oo dadku ay gataan Fartuun Balbalaarka nolosheeda halkaas ayay ahayd iyadoo halkaas xaalkeeda ay ku jirto oo ay ah hooyo Soomaaliyeed oo xamaalanayso ilmaheeda mataqaanaa ay ka go'an tahay in duruuftaas iyo waxaas ay ku jiraan ay ka saarto dadka mataqaanaa aan la sheekaystay oo nolosheeda waxaan ka weydiiyey Fartuun Balbalaarka waxaa la sheegay inaysan ahayn dadka badanaa inta badan mataqaanaa shaxaadka jecel maysan ahayn oo maqaska way ku yar yahay huuy ma kici jirinin Fartuun Balbalaarka inkastoo ay qof aftahana ay tahay haddana ma shaxaad badnayn Fartuun Balbalaarka sida aan mataqaanaa la ii sheegay waa aniga markhaati TV mar walbo tooshka aniga waxaan idiin sheegaa waxay tahay waa sida runta iyo wax aan soo helay ama Fartuun Balbalaarka taageer ama taageerin ama ku qaata ama ku qaadanin waa nolosha dhabta ah idinka sheegayo Fartuun Balbalaarka intaas kadib waxa ay soo gashay social media oo markeeda hore aysan ku talagal ma ahayn laakiin waxay u soo gashay si kaftana iyo baasal yar oo beerta nabadda ay tagisay ayay u soo gashay kadib waxa ay noqotay
mataqaanaa qof ku fiican barihii bulshada oo inkastoo ay dhaleeceyn fara badan markii hore la kulantay oo ah mataqaanaa in ay surweel ku haystay iyadoo qof xoog leh aysan ahayn haddana midaas dheg jalaq uma siinin oo mar walba waxaa dhageeda ka yeerayay culeyska familkeeda haysta iyo iyada khaasatan dhibka haysta waxay u arkaysay social mediaha inay tahay meesha keliya ay uga bixi karto nolosha adag ay haysto ugu dambeyntii waxa ay shaqaalo ka noqotay mid kamid a youtubada muqdisho oo gaar ahaan durdur media ayay ku biirtay halkaasi jilaa iyo waxay ka ahayd barnaamij tabiye fartuun waxay kusoo baxday ugu dambeyntii qof leh ilbaxnimo dhanka social mediaha ugu dambeyn waxay kusoo baxday qof leh taageero qof haysto ugu dambeyntii waxay kusoo baxday qof fahamsan wacyiga social mediaha ama youtube-ka ee xilligaas jiray waxay u shaqeynaysay xasan top kadib waxay ogaatay dakhliga soo galaya ee magaceeda iyo shaqadeeda kusoo galo durdur media inay tahay wax aada u weyn wixii ay lacagta la siinaya eed 100 iyo wax lamida maadaama eed qof ay ka go-an tahay mar walba nolosheeda siday ku horumari lahayd maadaama ay ka go-nay siday familkeeda iyo caruurteeda iyo ku badbaadi lahayd fartuun waxay istustay in xasanto briiska uu helo in uu madaxeeda uu ku helo qiimeyn badan ay samaysay la tashiyo markay samaysana kadib waxa ay ku guuleysatay fartuun balbalaarka in xamaaligii xasantoob ay ahayd inay ka baxdo oo iyadoo ay youtube furato youtube bay furatay waxaa isla markii youtube-keeda u guuray taageerayaashii hore u lahayd oo durdur media ka daawo jiray gebi ahaantoodba waa guureen oo waxay u guureen janaal cusub ay furatay oo fartuun balbalaarka official xaggaas ay taageerayaasheedii u aadeen kadib waxaa dhacday fartuun balbalaarka in hoosheeda halkaas ay kasii wadato nolosheedii waa isbedeshay waxay soo bandhigtay mar dhaweed nolosheedii qaabka ay u sarsay inay guri ijaaratay oo ilaa 3 qol 6 qol inayd umaleynaa 3 qol ka kooban inay samaysatay oo ay mataqaanaa ay halkaas ay fartuun balbalaarka ay degtay oo ay base ina yeelatay iyadoo caddeynaysa shaqadii wacneed ee youtube-keeda u qabtay guushii ka dhalatay inay saas ay tahay saas waxay marka kusoo bandhigtay basekeeda laakiin hadda fartuun balbalaarka waxa ay samaysay markii ay nolosha samaysay oo ay youtube-keedii iyo adduunkii u kala kacay hadda fartuun balbalaarka dhibaatadii kasoo gaaray jaceylkeedii iyadoo yaraay soo gaaray jaceylkii afweyne hadda nolosha fartuun balbalaarka waxay maraysaa noloshii hore ka meero fartuun balbalaarka waxa ay soo bandhigtay jaceyl cusub oo ay dhowaan ay samaysatay fartuun seedigan cusub waxay soo bandhigtay iyadoo aada u labisan iyadoo aada u dhoola cadeynayso iyadoo aad dareemaysid waad dareemaysaa markaad meel caqiran oo adag markaad ka imaatay markaad usoo wareegto meel wanaagsan oo naxariis markaad usoo wareegto waad dareemi karaysaa farxadaada farxadda bili-aadanka dadku waxay qiyaasaan qosol oo keliya laakiin maahan murugta ama farxadda marka ay kaatan badato waxaa laga dareemi karaa dareen ahaanta jirkaaga iyo wejigaaga ayaa laga dareemi karaa fartuun balbalaarka iyadoo aada u labisan oo aada moodo islaan aroosa aada moodo ayay xaajigeeda cusub ay soo bandhigtay xaajigeeda inkastoo xaaji asna jiin webi kale oo ahaa oo tolkeeda yahay haddana fartuun balbalaarka way ku qanacsaneed oo waa ay soo bandhigtay dadka qaar waxay dhahayeen maadaama qof famous aad tahay oo caan ah oo youtuber weyn oo lagu yaqaano inay sameyso inay tolka maalin meel kale ay jaceylkeeda ka sameyso laakiin saas maysan sameynin waxay sameysay jaceylkeeda cusub sorry ma garanayo magaciisa laakiin waa idiin soo bandhigaa ila daawada fartuun balbalaarka jaceylkeeda cusub ay hadda ay soo bandhigtay adinkaba waa muhiim adigay daawanaya waa ku muhiim seedigaa inaad baratid sababtoo taageera u taa fartuun balbalaarka
دكتور لابسا إذا شوفه ولا كلا كحسين هاي ما أنت دكتور كي عاشقة وجعل كي عصب مكان هلو صويا عهم حلوف ديا هذا نشعل هاي my love thank you very much ها adhegaysato waa dhegaysatay adiga ku tiri waa inaad la socotaay ku tiri waa inaad aad ila taageertaa jecelkayga cusub furto balbarka hadda nolosheedu waxay maraysaa wixii hore ka meelo oo waxay samaysatay nolol wanaagsan marka taasi waxay ku tusaysaa hooyo kasta oo dhabarka u xirata sidii u badbaadi lahayd nolosheeda inay sameyn karto keli ahaansha xataa ay ku sameyn karto iyada keligeed ay nolol kale xataa ay samaysan karto iyadoo ka cararayso noloshii mugdigaad ee shalay ay kasoo baxday fartun balbaarka nolosheeda koobnaad oo inta aanan kasoo ogaanay oo markhaati t v oo soo ogaaday waa intaa way ka badnaan kartaa laakiin inta ugu muhiimsan nolosheeda fartun balbalaarka bilowgeedii ilaa inta waa intaas aad ayaan kaga mahad celinayaa sida waxaan aad u daawanayseen markhaati t v markhaati t v had iyo jeer waa markhaati nool waxaana toosh inkugu ifi doonaa meel walba oo aad rabtid inaad wax ka ogaatid soo dhawaada waadna mahadsantihiin maalin wanaagsan afkaygu ammaantaada u fududaaye afkayguna ammaanta